gubta aboowe hurdo meeli xanuunkeyga waa kana saana u yaala 3 bilood qof bini'aadankee waay Queen of Ajuran walaasheen Amish oo waayihii dambe muran badan la geliyay nolosheeda walow dadka qaar ay dhahayeen walaasheen Amish ama ay ku tilmaamayeen inay geeriyootay ayaan maanta waxa ku soo booqday mid kamid ah istaalada ku yaal magaalada Nairobi halkaas oo bilooyinkii u dambeeyay ay ku xanuunsaneed ayna jiiftay walaasheen maanta waxa waay safar dheer ayaan ayada u soo galay si aan xaaladeeda caafimaad iyo maanta waxa idinka doonayna idinku soo bandhigno Amish halkan waxay ku jirtaa in muddo ah xaaladeeda caafimaad halkaas lagu la tacaalayay dadku inta badan way yaqaanaan xaaladda ka jirto magaalada Nairobi iyo qof markuu isbitaal ku galo halkan waxyaabaha uu kala kulmi karo ama sida yani istaalka xaaladiisu ay tahay maanta codsi ay wadataa codsigaasna si guud ahaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo ayadana markii hore nila hadli doonto haddii Ilaahay yiraahdo maadaama in muddo aad weydeen Amish marka koowaad Amish ayaa microphone-ku wareejinaya si xaaladda jirto ay nagu waranto dhammaantiin horta waa idin salaama asxaabta qaaliga ah meel kasta adduunka ka joogtaan ilaaha mahad iskale maanta haddii aan hadlaayo horta geerida iyo noloshaba ilaaha haayo waxaa idinka codsanayaa walaalahayga ummadda islaamka dhan inta ii soo ducaysay horta waa mahadsantihiin saas ay tahay in muddo waxaa ku jiray isbitaalka ugu dhowaad 3 bilood waxaana kaaga mahad celinayaa maanta walaalkay Nuur Abko uu isoo booqday qofka ugu horeeyay maanta uu isoo booqdo uu noqday aad ugu faraxsanahay tan kale aan sheegay meesha maanta caawimaada idinkaaga baahanahay isbitaalka muddo ku jiray alxamdulillah ilaa mahad iskale hadaaba maanta hadlaayo waa ilaahay mahadiis kaliya waxaan rabaa inay caawisaan isbitaalka qarashkiisa iyo inay garab qabataan oo waxaa la igu leeyahay lacag gaaraysa milyan walaalkay jaalo waa mahsanta maadaama isoo booqatay 100% oo garabkaygana soo istaagtay maanta assalaamu calaykum asxaabta dhamaan maanta aan la joogaa walaasheen Queen of Ajuran alxamdulillah isbitaalkan ay ku dhex jirtaa abaaye soo dhow waa dhow aboowo walaalkay jaalo waa mahsanta maadaama isoo booqatay 100% oo garabkaygana soo istaagtay maanta asxaabtana waxaa ka codsanaa inay ii soo duceeyaan meel kasta ay joogaan gabadha deesaasan uma sii hadli karto asxaabay muuqaalkan meel dheer hala gaarsiiyo gabadhan walaasheenna hala soo duceeyo aniga wallahi waxaan moodayay inaad mataqaanayd ina isbitaalka laga saaraaso aan u hiistay aniga xalay markaa muuqaalka arkay wallahi waa siixan waay lambarkaada meel walba ka soo raadiyay si aan ku soo helo waxa waay ugu dambeeyna waan soo helay walaasheena u soo duceeyno runaahantii muuqaalka markaa arko la aada oganahay alxamdulillah hadaa wax hadlayso waa khayr alxamdulillah hadii marba ay hadlayso walaasheen aan u soo duceeyna dhamaantiin waxa waay maanta duceeyna u baahan tahay walaasheen wareer soo dhawaada meel kasta oo joogtaan ahya dunya ahya zaman habeen markaan inaan muuqaal soo duubo gabadhan walaasheena ka masuula ayadana ilaahay caafimaad ha siiyo sida ay sheegteen xanuunka dambi dhaaf Allah kaga dhigo mid ay ku cibra qaadatan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha kaga dhigo sida ayada sheegtayba inta kadib muuqaalkan haduu soo gaadha ilaahay dirti u sheer garay sida dad badan ay u gaadhaan gabadhan way camanaysaa waxay leedahay isbitaalka qarashaad badan baa liiga leeyahay qarashaad badan waa liiga bixiyay wax badanna waa laga rabaa oo mana awoodo waa isweydiiyay marka maskaxdaydan yar ma aragtaa way isweydiisay waxay leedahay 3 bilood baan isbitaalkan ku jiraa qofkii ugu horeeyay Nuur Abko isoo booqday baa tahay dadka Kenya ku nool gaar ahaan Nairobi ayagu maxaasidiinba maysan bini'aadan ahayn jir dan qadam kuma yaalamiya subhanaka ya azim war gabadhan Allah caafiyo dadka damiirka leh oo dhiiga leh oo ihsaanka leh oo dadnimada leh ee muslimnimada iyo danqashada ay ku dambayso ilaahay ina ka baqdaan dadka Nairobi joogan la hadlayay gabadha u tago gabadha booqda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah والضور ما إلهي لي ودارنا يا إلهي والضور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور
والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع با إلهي لي عد إذن كالدفاع دون عذابك إلهي سبحانه وتعالى مجرت جل جلاله إلهي عذاب كيسه وما لن أذك با إلهي لي فذلك يومئذ يوم عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دواني سلام البود كل جوجتان وأني سميها خليل ما أنتو حسوا بوقضي ولا شيء معان آمين عبد الله تاسو سبب يهي walaalkay videogiisa marka arkay wallahi inta ku daala ani ilaahay u basheey karo intaasna wax mobilkeeda iga qabto iyo wax ii sheego meelay joogto Nairobi way weyn tahay ayaan waaye alxamdulillah ugu dambeyn walaalkay la soo hadlay isagaana numberkiisa isbitaalka wax walba everything ii fududeeyay alxamdulillah gabadhan walaashaya